farmaajo markaas waad u ololaysay xaggee ka soo bilowdeen siyaasadahan isbarashadeen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dadaan saaxiibanahay baa horta iska baray markii uu ra'iisul wasaaraha ahaana waraysi baan marka qaaday laakiin maanan sheekaysanin oo dad shakhsiyan u sheekaysta maana ahayn kabacdi ragaan saaxiibanahay baa iska baray markaasaan sheekaysanay afkaartiisa siyaasiga ah baan ku qancay oo aan dareemay aniga qanaacaadkayga iyo afkaartiisa siyaasiga inay iswaafaqsan yihiin dawladdiisii mulkiilaha dawladda mar kale soo laabatay markan haddii Fahad 2012 door xoogan uusan lahayn 2017 Fahad soo laabtay farmaajana madaxweyne noqday oo uu ololeeyay 2012 wuxuu noqday mulkiilaha dawladda madaxweynayaal hore iyo siyaasiyiin badan iyo shacab Soomaaliyeed iyo warbaahin badan erayga mulkiilaha dawladda aad loogu wareysay ninka maskaxda dawladda oo ah warkiisa ku kala socoto waxa uu isagu yiraahdo kaliya ay shaqeeyaan aragtaas saad u aragtaa bishaaro waxaan kuugu bishaaraynayaa application-ka Baysi waxa uu ka caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta Baysi waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka fiiri walaalow laba arrimood waaye mowduucaas wax badan baan dad uga sheekay laakiin maanta ugu horeysa amarna public aan uga sheekayn doono horta erayga mulkiilaha eray asluubaysan ma aha dawladda in la dhaho qof ba mulkiila ah eray يعني qarannimada iyo jiritaanka ummadda iyo baaxadda dalka uu leeyahay in qof loo sheego xogaa ma haboona waa eray arrintii ka xumahay dad mas'uuliyiin oo waaweyn isticmaaleen oo eray yani aan ku sifeyn kara waaye kuma haboona in dalka iyo dadka la dhaho baa mulkiila laakiin waa cudur siyaasadda dalka muddo dheer soo hayay oo institutionadii in la qofeeyo dawladdii la qofeeyo oo la dhaho hebel waana wax nidaamka xisbiga ahaa iyo xisbiyadii siyaasadda oon hana qaadin baa qayb ka ah in marka wax la shakhsiyeedayo taas waa mid labaad waxa waaye madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ugu dhawaatay haddii ay weydiinayso dee khalad ma inaan u dhawaado hogaamiye kasta qof baa saaxiib la ah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam abubakar baa dadka ugu dhawaa abubakar cumar bin khadaab baa dadka ugu dhawaa marka every leader hogaamiye kastoo dunida yimaada qof saaxiib la ah waa jiraa anigana sharaf ay tahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inuu saaxiib iga dhigtay dadka ugu dhow iga dhigtay saaxiibtinimada marka laga tago hawlaha dawladda Soomaaliya ilaa min bilow ilaa min dhamaad oo siyaasiga inaad go'aanka u dambeeya lahayd go'aanka u dambeeya marna ma yeelan karin laakiin waxaan joogay institutionada lagu kariyo go'aanka marna jiif waxaan ahaa madaxa xafiiska madaxweynaha agaasimaha guud ee madaxtooyada shaqadiisa waa taqaana madaxweynaha qofka ugu dhawaa marna waxaan ahaa agaasimaha nabad sugidda ee sirdoonka qaranka waa qofka madaxweynaha shaqo ahaan ugu dhow oo amniga dalka iyo mustaqbalka dalka jaangoyntiisa tala kale marka Fahad Yaasiin inuu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo talada iyo siyaasadda processka lagu karinayo qayb ka noqdo xilkayga keenay anu qof ahaanteeda ma keenin mulkiila ma ahayn dawladdii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo shaqaalaan u ahaa dawladda aniga waana uga mahadcelinaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inuu أو يسيء لبا فرصات أو ودن كوش قيو لكن أود بدن له هدي أود ماشي كره هذين اسماء قناة مدته كره هذين يا وحن كويري مدحوينه مركب وجوان جاريو إنستوشنا دريال وصل كريا جوانك سردون كوا مهم سنة دون كordon دريال مركب لصاق دريال مت كم إذا ملحق أها صدرت مدحوينها مركب أنا وجينا نتلو وحنو جينا وحو كلا دورت تن باجرت تن با تي أديك مناسب كل عقاده لكن أنت هسون أوبشن هجران وربحين تان هجرت marka koofiyadii oo asagu ii galiyay ahayd shaqadu isii baa waxay keenaysaa dhariyadii wax lagu karinaya mid kamid ah ka shaqeeyo awoodaas ma la dhihi karaa Fahad wuxuu adeegsaday dad kala duwan oo meelo kala duwan jooga oo siyaabo kala duwan leh oo qaarkood ay dhibsadeen go'aamadii uu karinayay ee noqdeen ama uu soo jeediyay kuwa la qaatay oo dad Soomaaliyeed dib ay kala kulmeen dad Soomaaliyeed dib kala kulmay hadal balaaran waaye laakiin go'aanka soo la gaaro dad baa dhibsanaya dadkii wadanka dhibaya baa laga yaabaa inay dhibsanayaan dadkii wadanka dhibaatada ku haya dhibsanaya waxa laga yaabaa go'aanadaas inaad adiga ahaan waad ku faraxsan tahay inaad saad u qaadateen aad soo jeediseen madaxweynuhu qaatay wixii ka dhalanaya inaad saas aad u aragtaan maslaxad hadee waxa aan dalka u joognay waxa ay wadanka loo adeego madaxweynuhuna waa ilaaliyaha dastuurka waa ilaaliyaha danaha qaranka cid kasta oo ku kaalmeynaysan waa inuu kaalmeysto oo institutionadii dawladda ah ee adeeg kala duwanaayo dawladda
mudan aad baan kaaga mahad celinaya waraysigaaga iyo waqtiga aad na siisay waxaan jeclaan inaan ku weydiiyo madaxweyne farmaajo markii uu guuleystay waxaad noqotay agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka waa qofka ugu dhow sida aad hadda tilmaantay shaqo ahaan madaxweynaha horay waxaad u diiday wasiir xukuumadeed oo xasaanad leh oo baarlamaan ansixiyo oo shaqo qabta wasiir iyo agaasimo guudna way kala sareeyaan nidaamka dawliga marka laga hadlayo tii hore waxaad ii sheegtay inaad ka cudurdaaratay darajo ahaan waxaa sareysay wasiirka agaasimaha hoose maxaa ku kala dooratay waan kuu sheegay waxaan ku iri qanaacadeyda siyaasiga ah iyo afkaartii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iswaafaqay markay iswaafaqeen marka wadanka inaan u shaqeeyana aan go'aansaday shaqadii uu ii dirsadaan qabanayaa shaqadaas waan iga dirsaday agaasimaha guud ee madaxtooyada aan u noqdo waana ku qanacday raalli iyo nus baan ku ahaa waana ku faraxsanaa madaxweynahana waan uga mahad celiyaa mar walba waxaan rabaa inaan u gudbo intii xukunka aad joogteen nabad iyo nolol fahadna uu ahaa agaasimaha guud ee madaxtooyada ama taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ama agaasima ku-xigeenka hay'adda 3 dowlad goboleed ayaa madaxdooda isbedel siyaasadeed ku yimid doorashooyin ka dhaceen madaxweynayaal la doortay madaxweynayaashaas waxaa la aaminsan yahay adiga fahada ee maanta aan is hor fadhino inaad lahayd door xoogan oo ku aadan sida xukunka ay ku yimaadeen ma sax baa arrintaas qayb baan ka ahaa dowladda Soomaaliyeed oo markaas jirtay oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hogaaminayay aniguna aan mas'uuliyiinteedii ka mid ahaa doorashooyinka dalka ka dhacay ra'yi bay ku lahaayeen qof baa la fiicnaanayay qofkaasay taageerayeen qofkaas inuu guuleysto ka shaqeynayeen marka maamulkii markaa jiray shaqadii aan hayay qayb ka mid ah waa صح inaad dowladgoboleed farageliseen madaxweynayaal soo doorteen dowladdu aragti ka yeelatay horta faragelin ereyga la dhaho sax ma ahan anoo ajnabi ma nihin madaxda dalka aan ahayn laakiin qof madaxa lama dhaho waxba farageliyay